laguna magacaabo Ismaaciil Aadan Hindiise. Ismaaciil Aadan waxa weeyaan nin Soomaali oo degan dalkan ahna mid ka howlgala dalka Norway qaasatan magaalada Oslo ka tirsan ciidanka booliiska dalka Norway sida aan sheegay. waxa aan leeyahay marka Ismaaciil ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee Samadoon Radio. waayahay waxaanu aragnaa ama aanu maqalnaa runtii Soomaali badan oo dalkan degan Ismaaciil kuwaasoo ah kuwa qaxooti oo dalkan ku nool oo tiro badan oo rag iyo dumar iyo carruurba leh balse waxa aad noogu yar inaanu maqalno nin Soomaali oo sidaadoo kale markaa ah nin booliis oo Soomaali ah waxaad si kooban igu sheegtaa soo gelitaankii dalkan waqtiga aad timid iyo shaqada booliiska aad qabato hawshu sida ay u bilaabatay waxaan waddanka 1990 iskuulkana waxaan ka baxay iskuulka Blaiskana waxaan ka baxay 2005 waaya intii u dhaxaysana waxaan ku jiray waxbarasho Dragoone jaamacadda iyo shaqooyin kale oo kala duwan miya waxaa jiray cid kugu taageertay markaa oo hawshana ciidanka booliiska aad ku biirto cid igu taageertay ma jirin aniga ayaa hawsha soo galay training hadday noqoto information aan soo helo hadday noqoto waxyaabahaas oo aniga ayaa ka soo fikradda ah inaad ku biirto ciidanka booliiska ee dalkan sida ay ku timi markii hore wax ma noo sheegi kartaa waxa igu kalifay horta Blaiska waddankan waxa looga soo baxay iskuul sare waxaad qaadanaysaa jaamacad shahaado bachelor marka waxyaabaha igu kalifay markii hore wax ka mid ahaa waxbarashada inaan qaato oo high school niveau shahaado aan qaato aanan arkay wax inay tahay shaqo xiiso leh oo aan cid wada kalena igu horeynin aad iyo aad marka la yidhaahdo booliis waa hawl adag maadaama aad tahay qof asalkiisa kasoo jeeda dalka Soomaaliya ee ahna ku yimina qaxooti ahaan sida aan filayo sida ummad Soomaaliyeed oo badan ay ugu timi fikraddan ah ku biiridda marka ay noqoto iskuulada aad soo martay marka laga tago wax ka hor imaasha ama dhibaato aad kala kulantay ma jirtaa wax dhibaato aad kala kulantay ma jirto wax dhibaato kala kuma jiro laakiin de waa inaad kulli dadaal bay u baahan tahay wax kastaba markaad meel cusub gelayso waxbarasho aad keliga hore aad tahay cidi kaaga horeynin hadday luqad tahay hadday ay training iyo exercise la sameeyo ay tahay hawl adag bay u baahan tahay waayahay howlgalkaagu waa magaalada Oslo shaqada booliisku waa ay kala duwan tahay waxaanu maqalnaa inkastoo sharciyada aad u aqoon booliisku waa qaybo badan qaybtaad adigu ka howlgasho waa qaybta Ismaaciil waa qaybo badan anigu qaybtii aan ka shaqeynayay 3 sano ee laga soo gudbay waxa la yiraahdaa for beginner waa waxa weeyaan caadi ahaan dhalinyarada aan ku shaqeynaa wixii 18 jirka yaryar iskuulada for beginner macnaheedu waxa weeyaan inaan wax dambi dhicin ayaan ku hortagnaa oo aan waxyaabihii keeni lahaa dambi ayaan baarnay oo aan dadka kula talinay inay ku hortagaan markay arkaan Soomaalida dalkan degan nin ciidan booliis ah ahna Soomaaliya oo labisan ee socda aragtida iyo reaction kuwa sidee way fiican marka dhalinyarada ka howlgashaan iyo carruurta yaryar iyo waxa noloshooda wanaagsan iyo sida loo dhisi lahaa si ma noogu sheegi kartaa howlgalka wuxuu ku salaysan yahay ma in la badbaadiyo ma ajaanib kaliya mise Norwegian-ka way yar ما أشارب يو نوريتش بون كشغينا قايب بيدي لهم أيوة أنا مقابل سنة بيدي كله هو بيستر آخر حافظ عن البيت دياله مركا قف إنك كستوب بليسا ما قبل كستوب بليسا وحنا مقابل سين يا سكولة وجارة يا حافظ وجارة أو هاي لحيري عندك أو مركا هي بيجي لوالفين كان عينا حاليا يعني مركا كلام سيرو كرتيج لهاي أي dadka aad ka dhalatay asalkaagu uu ka soo jeedo runtii anigu adigu waa Soomaali baan nahay soo gelitaanka dalkan iyo ogaashihiisa waxa la sheegaa dad criminal badan Soomaaliya inay jiraan ma dhacdaa Ismaaciil mararka qaarkood in ciidanka aad ka tirsantahay booliisku ay markaa kula soo xiriiraan oo ay ku isticmaalaan in dadkaaga dabagalka ama meelaha dhibku uu ka dhaco markaa iyagoo eegaya luqadda aad ku hadashay asalkaagu meesha ka soo jeedo ماي واحد شرا ترجمانو دad u shaqeeya ayaa jira Blaiska marka qaybaha qaybteeda ka ahayn wixii dhibaatooyin ku saabsan
soomaaliyeed waa inay iyaga xalkeeda doono wax dhibaat adiga lagula soo xiriirayo markaa lagu leeyahay kiiskaas baanu haynaa falgalkaasi maxaad ka qaban kartaa luuqad ahaan iyo dhaqan ahaanba maadaama aad taqaano dadkan ma dhacdo way jiraan qaar aan ka qayb galay oo xaafado Greenland police ku yaalo oo kale aan ka qabanqaabiyey dhalinyaro ciyaal yaryar oo dhibaatooyin sameeyo hooyooyinkood loo yeedhay oo aan afka aan garanayn laga yaabaa marmar aan ka qayb galo laakiin de waa qaybtan aan qaabilsanahay iyo dhalinyarada marka aad aragto dadka soomaalida ee dalkan degan ee 20 kun kor u dhaafay ciidan ahaan booliis ahaan norwegian ahaan iyo soomaali ahaanba haddii aan ku weydiiyo asal ahaan meeshaad kasoo jeedo iyo dadkaaga ma ku tahay nin proud ku ah ma aad dareentid mararka qaarkood ciidan ahaan soomaali ahaan dadkaagu in dad bulshadan ay la nool yihiin ay aada ugu liitaan oo dhaqan ahaan iyo la dhaqmid ahaan iyo la joogidba markaan anigu bilaysahay qof kastoo bilaysa waa ina neutral weyn u ahaado dadka si baan u wada arkayna qof kastaba hadduu criminal yahay iyo hadduu yahay qof dhibaataysan iyo qof noloshiisu wanaagsan tahay dadka mid kastaba waa inuu respect aanu si aanu la wada dhaqano waana mid ka dhexaysa bilayska magaalada oo dhan inaanu qofna qof si gaar aan loola dhaqmin qof kastaba dadka si loola wada dhaqmo sharciyada soomaaliya marka la eego ismaaciil booliis marka la yidhaahdo dalkan amnigu waa ka duwan yihiin mararka qaarkood waxaad arkaysaa nin booliis ah sargaal ah oo lugeynaya Greenland oo markaa aan attention badan aan la siin meelahaanu ka nimi ciidanka iyo dadka dareyska sitee libisan aad ba looga qiimeeya looga cabsadaa dadkaagu marka aad dareyska sidato aad socoto ma ka dareemtaa cabsi markaa inay meesha kasoo jeedaan ay tahay meel ciidanku aada looga baqo ama ha ka jiray dictator halkan ay tahay inay ka duwan tahay wallahi waddanka halkan way ka duwan tahay dee waddankan sharci baa lagu socdaa haddii aad labisan tahay iyo haddii aad labisnayn bilayska sidii wax badadiina ma jiraan nin bilaysna kuguma xadgudbi karo sharcigana kama tallaabsan karo waddankan marka waxaad ixtiraam caadi ahaan haddii ixtiraamtood salaamto mooyaane dee cabsi aad ka cabsanayso ka baqaysa dee ma jiro meesha oo laisleeyahay ninka ismaaciila waa ninka labisanaya askariga ay ka leexo ma jirto dee qofkii kolley wax samaynaya dee dembi wax hoosta wax ku wataa waa laga yaabaa inuu dhinaca kale inuu kaa wareego ama uu kaa yaro durko laakiin cabsi uu cidi ka cabsataa waddankan ma jirto 20 sano ilaa iyo 10 sano ugu dambeysay dadka Soomaalida aad bay dalkan usoo gelayeen sida aan maqalnay ama qoraal aanu ku hayno ciidanka booliiska dad Soomaali oo ah ma ay jiraan marka laga reebo Ismaaciil waxaa tahay ninka kaliya booliis ciidanka booliiska ka tirsan ee dalka Norway ah dadkuna waa 22 kun tale maxaa keenay kula tahay wallahi mooy wax keenay dhalinyaro badan baa jirta oo geli kar lahayd kama jawaabi karo ma isleedahay adigu inta aad ku jirtay ciidanka booliiska iskuulka inta aad ku jirtay ciidanka aad dareeska sidatay madow ahaan Soomaali ahaan miyaad la kulantay cunsuriyad adiga aad dareentay may wax aan cunsuriyado aan farta ku fiqo kumaan maan arag laakiin kulley dadka ku jecel iyo dad ku nacab oo arkaysa adigu dantaada wadata waxaan ka wadataa haddii dadku Soomaalidu waa dad aad u fara badan oo dad halkan ku koro ku dhashay jira haddii caawa ay jiraan laanta afka Soomaaliga ee samadoon cid dhageysanayso markaa islahayd waa cunsuriyad iyo dhibaato lagama bixi karo wax cadayna ma u sheegi kartaa oo qofku inuu badbaadi karo Ismaaciil waa askari cunsuriyada uu soo marayna kulleeyay haday jirtana ma badna waa wax laga gudbi karo ku soo biir ciidanka markaa badbaadideedu ma xuma ha cunsuriyad ma jirto qof waliba isaga ku xidhantay way jiraan dadku nacab iyo dad ku jecel baad arkaysa shaqo kastaba bilayska ugu dhamaaha shaqooyin kale dhama haddaad aragto cunsuriyadda qof weji ku imanayo wejiga candhuf kaaga fayadee ma jiro laakiin qof aan kula hadlayn oo dee dhinaca kaaga wareegaya haddaad aragto dee adiguna dhinacaaga ka wareeg dantaada wadata adigoo ciidanka ka tirsan oo kolleegihiisii ah haad way jiri kartaa qof aydan isku fiicnayn inuu jiro ama wax kaleba ay jiraan laakiin dee cidina ku iman mayso wejiga candhuf kaaga tufayso dantaada wadataa xagee loo soo maraa ciidanka booliiska codsigiisa haddii ay jiraan dadna dhageysanaya sidaas oo kale oo markaa dreamkooda ama riyada ay leeyihiin ay tahay markaa inay noqdaan hindiis oo kale
waa inaad tagto place stationka ka kugu dhow aad sheemooyin kasoo qaadato aad buuxbuuxinayso haddii markaa lagu galo nin baad geynaysaa markaa nin place oo meesha fadhiya su-aal ku weydiinaya haddii uu qof markaa uu ku garto qofkii waxaad lagu yeedhayaa ilaa 3 bilood ka bacdi oo aad physics test train baad gelaysaa dabaal iyo exercise kaloo kala duwan haddii aad kuwa ku baasto waxaad u gudbaysaa qaybtii saddexaad oo interview lagaa qaadayo maskaxdaada la baarayo sidaad qof danta waddanka la socda siyaasadda la socda sanfka la socda waxyaaba badan lagu weydiinayo haddii taa aad ku gudubto ay waad gelaysaa markaa qof criminal oo dembi soo galay ma kusoo biiri karaa ciidanka may dembiyadu way kala duwan yihiin inan yaroo 14 jir ama 15 jir dee wax yar sameeyey iskaadabaarka waxyaaba yar jijabiyey oo kale dee markuu 23 jir 24 jir yahay wuu odhan karaa waan weynaado wixii waan kasoo gudbo waxaan waa yaraahay laakiin dembiyadu way kala khatarsan yihiin haddii narcotic oo kale aad lagugu qabtay ama raan aad dad dhacday oo kale waxyaabahaas oo kale dembiyo waaweyn ay yihiin dee chancekaa ugu yari cafis male male kamana mid noqon karta ciidanka booliiska mid noqon dadka aad ka dhalatay ee asalkaaga uu kasoo jeedo soomaalida ismaaciil waa dad runtii dad tiro badan oo dalkan degan dhaqanadu way kala duwan yihiin marna ma istiri dadkaaga criminalka iyo dhexgalka dadkan aad bay ugu liitaan ها كل وين مقاطع إن الصومال isku xidhan yihiin aanay dadka aad u dhex gelin way fiicnaan inay bartaan inay dadka dhex galaan inay luqadda bartaan inay dadaalaan wax qof aan dadaalin waxna dee waxba ma faa'iidayo marka kolley way ku fiicnaan inay luqadda bartaan oo ay dadka dhex galaan oo ay la tartamaan tan kaloo aan rabay inaan ku weydiiye waxay tahay marka la yidhaahdo ciidan ahaan booliis ahaan soomaaliya saan hore u sheegay waxaa ka jiray corruption iyo dhibaato iyo waxa ha noqoto famil asxaab ha noqoto ma jirtaa may dhacda haddii aan ku weydiin karo su-aashan cid markaas la ismaaciil waa askari soomaaliya haddii uu dembi kugu helo habkii kale la eego may dhacda mentalityga weli ma tii horaan la haysanaa wallahi kamaan aragde waxa lama kulmin laakiin kolley waddankan ma jiro wax musuqmaasuqa ilaaluusha haddii aad tijaabiso nin bilaysa oo aad tidhaaho laaluush sameena waxaad suurtagalaya inuu isagu kugu ashkateeyaba oo adigii maxkamadda lagu geeyo inaad nin bilaysa istiri laaluushtay way dhacaysaa ha haddii qof ii yimaado aniga waxyaabaha ila yimaado waa qasab report baan ku qoraya waana ashkateynaya markaa dee waa isagu dembi kusoo mana aysan dhicin weli may dhicin waxaan rajaynayaa inaysan dhicin ugu dambayntii anigoo aada ugu faraxsan runtii in waktigaaga qaaliga caawa aad noo soo hortay aysan noqon doonin markii ugu dambeysay aanu kula kulanno oo aan jeclahay idaacaddan afka soomaaliga qaybteedan soo gasha habeenka axadda ah inta badan marka aanu la kulno qof mas-uul oo sidaadoo kale ah waxa aanu samaynaa khadka telefoonka ayaanu ku furnaa ummadda ciddii markaa su-aalo weydiinaysa balse caawa ma aysan noo suurtagelin marka haddii ay suurtoobi karto aanu markaad noo ogolaan karto inaanu xilli kale aanu kulanno markaa si aanu telefoonada iyo khadka aan ugu soo gudbinno dadka iyagu hawada naga dhagaysto markaa si ballaaran iyagu codkooda usoo sii deynayo markaa ismaaciil weydiinaya waxaanu idin leenahay in aanu kulli aanu haddii aanu ogolaasho ka helno ofisarkan caawa inaanu ballan kale aanu samayno mar kale aanu soo casulno oo ismaaciil aad aan hindise ugu dambayntii ismaaciil dadka soomaalida ah soomaali baan soomaalinimada aan ka hadalno sharciga marka la yidhaahdo talada ugu dambaysa ee aad siinayso kubiyadda ciidanka ha noqoto wax ka qabsiga dalka ha noqoto dhexgalka ha noqoto saas sheegtay isfahamka ha noqoto talada ugu dambayso aad dadka aad asalkaaga adigu aad ka soo jeeday aad ka timi dalkan degan ee qaxootiga ku ah maxay noqon lahayd waxay noqon lahayd inay dadaalaan inay luqadda bartaan inay sidii waxbarasho ay hadday suurtagal u tahay ay waxbarasho sameyn lahay u sameeyaan shaqeeyaan ta kale ay inay caruurtooda ay wakti ku qaataan oo ogaadaan meeshay caruurtooda joogaan waayo waxaa jira waalid badan oo aan warkayn meel caruurtooda ay joogaan iyo waxay qabanayaan caruuraha la geeyo activiteed ama kubad ha noqoto ama dhul kale ha noqotee laga kaxeeyo meelaha ay taagtaagan yihiin waqtigu kaga rumaya iyo malaagsan hadday noqoto galabnimadii laga caawiyo oo aan caruurta la iska sii deynin
waayahay aad baad u mahadsan tahay ismaaciil aadan hindhise nin soomaaliya isagoo asalkiisa kasoo jeeda qaaradda africa iyo dalka soomaaliya oo ah askari ka tirsan ciidanka booliiska dalka norway oo marti ku ahaa laanta afka soomaaliga ee Samadoon radio halka aad ka dhegeysanayseena waa FM 99.3 habeen walba aad naga maqashaan idinkoo si toosan nooga dhegeysan kara sidoo kale shabakadaha calanka deeyo shaaciye iyo waliba www.samadoon.com aad baad u mahadsan tahay mar kale waxaan ku leeyahay mahaddeeda adiga iskale mar kalena waanu kulmi doonaa haddii aan ogolaasho ka helno habeen wanaagsan Ismaaciil inshallah Iran wala